الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولليال موضوعنا وحو كسابسن yahay barashada ducooyinka gaar ahaan ducada aan maanta qaadanayno ciwaankeeda waxaa la yiraahdaa ducaaul khuruuj min al manzil guriga marka laga baxayo ducadii lagu ducaysan lahaa maxaa yeelay walaalayaal banaanka marka loo baxayo xasid qumiyo cadow shiyaadiin saaxiriin banaankay joogan qofka waxaa la doonayaa inuu duceysto ducadan marka adigu iska dayacin faa'iido fara badan bay leedahay ducadan kooban qofka wuxuu leeyahay bismillaahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah intaas markuu yiraahdo malaa'ig ilaahay ba u jawaabaysa waxa loo leeyahay hudiita wa kufita wa waqita baa loo leeyahay waa lagu hanuuniyay waa lagu kaafiyay waa lagu ilaaliyay qofka muslimka ana waxyaabaha ilaahay weydiista maalintii 17 jeer ka badan hanuun weeyaan hanuunkaas ayaa malaa'igta ilaahay waxay leedahay waa lagu hanuuniyay waa lagu kaafiyay waa lagu ilaaliyay waxa laga kaafiyay shar oo dhan xasidka saaxiriinta dhibaatadoodii makrigoodii waa laga ilaaliyay nabigana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam watanaha anhu shaydaan marka qofka wuxuu leeyahay bismillaahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah inta kaliya weeyaan walaalayaal yaana iska dayacin waxaan wili codsanaynaa in maartay oo la isku shargareeyo oo la faafiyo oo meel walba la geeyo si ay u faafto dad fara badan ayaa ducadan baahi weyn u qaba marka adiguna waxaad ka mid noqonaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir inuu ka siiyo oo fadaa'il fara badan aad ka heshid adigu aad akhriisato dad kale aad gaarsiiso ajirkaada lama koobi karo wajazaakumullahu khayran wa shakara lahu sana istimaa'ikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh